السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaysan shaki ku jirin bani aadamka horumarkiisa maanta inuu ku jiro dhanka tiknoolajiyada iyo cilmiga inuu ku taagan yahay xaraf ama number oo la yiraahdo 0 ama eber ama 0 waana asaaska caalamka ku noolnahay hadda. hadduusan jirin 0 wax kama jiri lahayn xisaabaadka differential ee afka carabiga loo yaqaano tafaadul ama integral ee asin afka carabiga loo yaqaano takaamul iyo wax walba oo ku saabsan xisaabaadka iyo kombiyuutarada iyo qalabyada elektarooniga aan hadda adeegsanayno. arrintaasna waa mid uu Allah ugu fududeeyay bani aadamka inay gaaraan dayaxa sidoo kale ay sameystaan kombiyuutaro iyo aalado kale oo casri ah. marka muuqaalkani waxaan ugu hadlaynaa taariikhda 0 iyo saameynta ay ku leedahay nolosheena iyo asalkeeda meesha ay ka timaaday iyo faa'iidada ay u leedahay sayniska. So here we are, in one of the true holy sites of the mathematical world. And what I'm looking for is in this inscription written on the wall. Up here are some numbers, and here's the new number. It's 0. waxa ugu yeeri kartaa eber ama 0 ama nil ama zib ama zilij ama now ama 0. marka ugu horeysa ee luqadda Ingiriiska ay adeegsadaan magac bixinta 0 waxay ahayd 1598 miilaadiga. waxa lagu tiriyaa eberka inuu yahay numberka ugu horeeyay ee nambarada uguna fudud uguna cajiibsan isticmaalkiisa. suurayso xisaabaadka siday ahaan leedahay hadiisan jiri lahayn 0. hadda ka soo qaad 10 waxay noqon 10 hadda ku darto 0 sidoo kale waxay noqon 100 marka ku darto 2 0. farqiga kaliya u dhaxeeyo waa 0. suurayso haddii mishaarka qaadato lagu daro hal xabo 0 tijaabi oo ku dar wax isbedel miyaa ku imaanayo. iyadoo marka u fiirsato xisaabaadka qiimo weyn uu ka joogo ayuu haddana u taagan yahay wax aan jirin micnaha nothing ama la shay. asigoo sidaas u taagan una fudud ma aysan ahayn wax fudud in la soo hindiso 0. wuxuu fudeediyay eberka xalinta xisaabyo iyo mucaadalaad aljabrik oo adag. taariikhyahanada waxay isku khilaafeen halka laga soo hindisay 0 ama eber ama 0 iyagoo qaar ay sheegeen in qarnigii 3aad ka hor dhalashadii Nabi Ciise nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee in ay ahaayeen baabiliyiintii ee degi jiray dhulka labada webi ama dalka Ciraaq hadda loo yaqaano ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee hindisay 0 laakiin wax qiimo uma taagneen. iyadoo taariikhyahanada qaarna ay sheegeen in asalkiisa ka yimid Giriiga ama Roomaanka maxaa yeelay caalamkii Batlimos in lagu arkay qoraaladiisa falaga uu ka qoray midaasoo ahayd qarnigii 2aad ee miilaadiga. laakiin badankooda waxay isku raaceen in asalkiisa uu ka imaaday culumada xisaabta ee Hindida ayna u yaqaanaan kelimada Hindiga Sunya ama Sunyabinda ee micnaheedu tahay marka la fasiro waxne. iyadoo la sheegay sida carabta uu ku soo gaaray lambarkaani inuu ahaa in ay dhacday sanadkii 773 miilaadiga in khaliifkii muslimiinta ee dawladda Cabbaasiyiinta Ma'muun uu u soo martay caalimkii falakiga ee Hindiga ee Kanka la dhahayay. sidaasna uu caalimkaasi khaliifka muslimiinta ugu dhigay hadiyad ahaan kitaab uu qoray qoraaga Barahama la dhahayay. kitaabka ayaa magaciisa lagu sheegay in la dhahayay Hindasint iyagoo kitaabka uu ka hadlayay dhaqdhaqaaqa xidigaha iyo xisaabta. khaliifkii muslimiinta Ma'muun ayaa loogu bartay casrigiisa inuu ahaa casri uu kor u kacay horumarka fikirka iyo falsafada iyo cilmiga iyo caafimaadka iyo xisaabta. asigoona khaliifka uu asaasay sanadka 836 miilaadiga jaamacadda Baytul Hikma ee Baghdad ku taalay taasoo ahayd waqtigaasi jaamacadaha ugu waaweyn caalamka. iyadoona waqtigaas uu dhiirigelin jiray qarash badan ku bixin jiray in la turjumo kutubta Giriiga iyo Farisiyiinta. kitaabkaasna loo hadiyay wuxuu ka mid ahaa kutubtii uu amray in la turjumo iyadoona uu ka mid ahaa culimadii muslimiinta ka qayb galay turjumada kitaabkaani. caalimkii weynaa ee loo yaqaanay Maxamed bin Muusa al-Khawarizmi wuxuu ahaa caalimkaani qofkii ka dhigay 0 number u muhiim ah xisaabaadka waana qofkii hindisay in eber laga dhigo midigta numberka waxay noqon 20 haddii laakiin laga dhigo tirada hortiisa waxay noqon 02 taasna ay ku kalifayso inaysan wax isbedel ah ku imaan karin tirada. Yurubna waxaa gaarsiiyay xarafka 0 muslimiinta markay qabsadeen Andalus qarnigii 12aad ee miilaadiga sidaasna ay ku gaartay boqortooyadii Britishka wuxuu alifay al-Khawarizmi waxaana lagu sheegay caalimkan inuu yahay aabihii cilmiga aljabra
waxyaabaha lambarka 0 uu kaga duwan yahay nambarada kale waxa ka mid ah haddaa ka jarto qiimo walbo waxba uma dhimayso, haddaa ku darto qiimo ama tiro waxba ma ku soo kordhinayso, haddaa ku dhufato qiimo ama tiro waxay noqon natiijada si walba 0. haddaa qiimo u qeybino sida hal loo qeybiyo 0 waxay noqon natiijada wax aan la aqoonsan karin ama infinity, afka carabiga loo yaqaano ma la nihaaya, wax aan dhamaad lahayn micnaha. nambarka eberka waa nambar dhexdhexaad ah, ma lahan wax ishaaro plus muujib ama minus saalib, waana midka u dhexeeya labada tiro, waana asaaska ay ku tiirsan yihiin nambarada. haddaa rabto inaad tiriso nambar waa inaad ku siyaadisaa 0, wuxuuna ku tusin nambarka 0 socosho iyo baaqi ahaansho, maxaa yeelay tirada asigay ka bilaabataa asigayna ku dhammaataa marka wax tirinaysid. ahmiyadda uu leeyahay 0 ama eber kuma koobna waxaan horey kuugu soo sheegay, ee waxyaabahan casriga ah hadda isticmaalno sida internetka iyo kombiyuutarka iyo moobeelada iyo badankiisa qalabyada korontada ee elektarooniga waxaa asaas u ah 0.